duqa magaalada boorama Salebaan Xasan Xadi oo maanta waraysi gaar ah telefishanka caalamiga Ariel TV ku siinayay gudaha magaalada boorama ayaa ugu horeyntiba waxaan weydiinay bal inuu tafaasiil dheer uu ka bixiyo sababtii xukuumadda Somaliland ay maalinimadii shalay ahayd isku hortaagtay ugaska guud ee beelaha Gadabursi ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi maayir Salebaan Xasan Xadi ayaa sheegay in maanshiyaha ugaska guud ee beelaha Gadabursi uu ku soo beegmay xilli buu yidhi hogaanka dhaqanka gobolada galbeedka Somaliland ay ku kala afkaar duwan yihiin arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka aad iyo aad baa mahadsantihiin halka ugaas Cabdirashiid waa ugaaskii guud wax culus uu ku iman karaa ama hawl culus oo la qaban kari waayo runtii ma aha in miiqaankiisa hoos loo dhigo sharaf iyo karaamana waa naga mudan yahay waa dalkiisii waa dawladdiisii dadkiisu Itoobiya way joogan Djibouti way joogan Somaliland way joogan imaatikiisu horta wax la hor taagay ma imaatikiisu lama hor istaagin laakiin marxaladda uu ku soo beegay baa ahayd marxalad gobolka ama degmada dadka jooga ay afkaarta siyaasadeed ee xagga saamiyada iyo doorashooyinka ku kala afkaar duwan yihiin xogaa khilaaf arrimo dhaqana ma arrimo dhaqan oo hogaanka dhaqanku ee gobolku sharafta mudan ay ku yar kala duwan yihiin taasa marka xilligan ku soo beegay ay ahayd xilli aan u diidayno in shaarkiisa nadiifta ah la taataabsiyo waxaanan u qalmin runtii waxaan u aragnaa arintani inay tahay arin hogaanka dhaqanka ee fikirkani ku yar kala duwan laftoodu ay dhamayn karaan oo hoos u dhamayn karaan oo la oranayo ileen kani waxbaan doonaynaa iyo kan kale labaduba wuxuu wada doonayaan isku laakiin fikirku ma loo kala duwan yahay inay hoos u dhamaysan karaan wax culus ay leeyahay iyagoona isku batagin oo waxba is weydiin in ugaaskiina ku soo dul dhaco wixii oo aan isku nidaamsanayn waxaan u diidaynay inuu nagaga milmo runtii karaamana waa u haynaa wax laakiin lagu hor istaagimay jirin arintanu maan lahayn ka dhowrsoonow deewaana waajib oo xukuumadda waajib ka saaran wax meel kale ka yimidna ma waa ka maamul ahaan maadaama aan xogtii iyo guntii aan ognahay ayuu baan ugu talagalnay in kulay loogu talagalay in hadii la yiraahdo hawsha aanay khilaaf kale oo hor leh ayna nagu aboorin waayo salaanta qaar baan weydiino waxay dhaayeen u yeedhista ugaaska mar dambaan maqalnay oo dalabku annagii yar kala duwaneeynu baa dalabku qayb naga mid ah ka yimi ayaan in malaha wax quruxma idinkoo wada socday inaad maad garaysaa marka ugaaskana lama celina waa dalkiisii xilliga ay ku haboonaatana iyadoo dhammaystiran oo xukuumad iyo shacbi loo dhammaystiran yahay ayaa loo yeeri doonaa halkana lagama celin karo waa dalkiisii way laakiin marxaladda hadda uu ku soo beegay baanu ayay isagana ay u wanaagsaneed dadkana u wanaagsaneed oo yeenaan waxa meel kale uga yeerinay odaga ugaaska wax guud baynu ugu yeerinayo aad u culus wartan iyagoo hogaanka dhaqanku ay hor fadhiistaan ayaa bay dhamayn karaan baan wax kale oo dhibi meesha ma taalo dhanka kala duqa magaalada boorama Salebaan Xasan Xadi waxaan weydiiyay bal inuu wax xidhiidh uu ka dhaxeeyo isaga iyo ugaaska guud ee beelaha Gadabursi ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi waxana uu ku jawaabay ugaaska aad baan anagu saaxiiboonahay hore berigii hore maayirka hore ahaana waan soo dhaweeyay si fiicanna waan isku naqana saaxiibana waan nahay laakiin waan isku tareegareeyay inaan la hadlo laakiin way suurtagal wada inaan la xidhiidho waan isku daba baryahan anigoo marka hore Hargeysa iyo hawlo geeriyaan halka u tagay ku maqnaa haddana waan isku tareegareeyay inaan in fact la xidhiidho way ii suurtagal wada laakiin waxaan hubaa kullee wixii aan la ii sheegay ahayd ama aynu wada ogsoonahay arrimaha lagu kala duwanaa inay tan ahayd imaatikiisuba ay ahayd inatana waxaan aad uga xumayn ugaasku isagii oo soo dhaqaaqay inuu wixii u yimi ay dadku ku kala duwanaadaan marka shalay toole markii dhalinyarada ay godooday wax arkaysa wadooyinka magaalada halboolaha ahaa oo gabihaanba la gooyay maxaa keenay sababahaas in mar walba oo mudaharaad dhaco dadku ay wadooyinka ay ku jeestaan طبعا waxa weeyaan dhalinyarada hadii aan la jihayn ama marxalad xun soo ama si caadifadaysan wax loo galiyo waxa weeyaan wax walba way sameyn karaan
marka dadkii anu maanta yani sida ay wax u dhaceen waxaan aaminsanahay wax badan bay tureen laakiin dadku waxay og yihiin mar walba waxa laga cabanayaa wadooyinkii markaan dhisnay ee daamir ay tahay ee lagu dul shido taayir iyo dab waa ogtahay sida wadooyinku noqonayaan marka waxay dhalinyarada dadka qaar baa ku jihaynaya halkan guba maxay kala soo qaatay laakiin shalay wax badan bay noo iftiimisay xaaladii dhacday waxa weeyaan dhammaan meheradaha laamiyada ku soo jeeda gaar ahaan banjarlayaasha oo dhan waa dadka taayirada laga qaato qaarkood baanu calaamadaynay oo runtii taayirada lagu gubay laga soo qaadanay qaarkoodna way xafidanayeen marka waxa weey taaliftiga talaabanu ka qaadi doonaa meelaha meynka ah wadada meynka ah cid ku soo jeeda oo dhan oo aan doonay maanta inaan kaga faa'iideysto laguma arki karo banjarle marka hore way noo qorshaysnay in la geershada inaan banaanka u saarno banjarle laguma arki karo ku soo jeeda wadooyinka laamiga ah haddaana wuxuuga hadii kala shuruud adag bay yeelanaysaa taas waxa weeyaan waa qodobka labaad ku jirana waxa weeyaan wadooyinka iyaguna dhagxaanta wadooyinka lagu gooyay jagooyinka banaan ee dhagxaantu isku dhex yaalaan ee caruurta markayno waxaasoo mudaharadada noocaas ay sameynayaan ay dhagxaanta ka soo gureen wadada ku xidhayaan jaga kasta oo laami hormarayo haddii deer lagu xidhi waayo dawladda hoose la wareegaysa iyaduna taasina wax weeyaan waxyaabaha nooga soo baxay because of dhagxaanta guri la dumin maayo jaga banaan baa laga soo qaadanay jagada cid baa leh cashuur xataa kama bixiyo waxaan waajib u leenahay anagoo raacayna sharciga oo ku mulkiyo dhulka inaanu kala wareegno dawladda hoosena ay isticmaashaa Ilaahay dhaw marka taasina waa fariin maanta halkan raacsanaya Ilaahay dhaawdo marka kulay damage uu soo gaadhay dawladda ku xun iyo ku wanaagsanba ka mas'uula وعمران حسين آدن ورركة تلفزيون كعالمي Ariel TV بورما.